Website walba marka la bilaabayo waxa laga bilaabaa waa meesha koobaad oo loogada iyo menu-yaha. Sida inta ka arkatid hadda waxaan haysanaa waxa waaye waa title ay ugu qoran tahay Katso iyo menu. Marka website-keena waxa aan ka bilaabana waxa waaye waa title-ka iyo menu-yaha. Si aan u dhisno marka waxaan kaliya ka dhisi karnaa waxa waaye waa customize. Laakiin intaana customize tegin ayaan waxaan rabaa marka hore in aan soo abuurto pages aan menu-yaha soo abuurto. Okay. Markii aan rabo inaan soo abuurto pages oo page-ka home-ka ayaan rabaa inaan abuurto. Page baan tegayaa kadibna add new baan ku dhufanayaa. Add new markaan ku dhufto ayaan inta waxaan ku qorayaa home. Kadib ayaan waxaan leeyahay publish. Saas hadda waxaan noogu abuuran waa home page-keennii koobaad. oo hadda haddaan refresh dhaho website-keena waxaad arkaysaa home-kii yani in xaggaas noogu soo qorantay home. menu-yaha saan u abuuranana waxaan tegaynaa appearance kadibna hoos ayaad u soconaysaa kadib waxaad arkaysaa meeshan hoose ay ku qoran tahay menus. Kadib meeshaas ku dhufo. Marka xaggaa ku dhufatid wuxuu ku leeyahay menu name magac u bixi menu-yahaaga. Kadib anna waxaan leenahay main menu. Kadibna waxaan ku dhufanayaa primary menu. Kadib ayaan waxaan leeyahay create menu. Markaan dhaho create menu ayaan waxaan hadda select garaysanayaa home-ka. Add baan leeyahay. Hadda kaliya home baa iigu jira meesha. Laakiin kuwa kale haddaan rabo inaan kusoo daro customize links baan tegayaa. Kadibna waxaan leeyahay waxaad iigu dartaa calaamadda hashkan ku qorayaa xaggaas. Kadibna inta waxaan ku qorayaa service. Add baan leeyahay. Kadibna waxaan leeyahay waxaad iigu xijisaa about oo say u kala horeeyaan ayaan u kala qorayaa. Kadibna waxaan ku xijinayaa waxa waaye work. midka u dambeeya haysanan wuxuu noqonayaa contact. Okay. Add to menu waan leeyahay. Kadib waxaad arkaysaa hadda home-kii iyo service about work iyo contact information loo soo geliyay. Kadib waxaan leeyahay marka save menu. Markaan save menu dhaho hadda waxaan ku laabanayaa page-keenii ama website-keenii kadib refresh baan leeyahay. Wakaas xaggaas ayaan loo soo geliyay home, service about work iyo contact. Markaan hadda aan rabno inaan isla qurxino marka oo meeshaan rabno inaan yani hagaajino waxaan ka samayn karnaa waxa waaye waa customize inaan tagno. Customize markaad wax ka hagaajinayso kaliya waxa customize waxa laga hagaajiyo waxa waaye waa menu-yaha meesha koowaad oo hore website-ka iyo footer-ka. Inta kale laakiin waxaan ku samayn doonaa page-ka Elementor. Okay, customize baan tegayaa. Customize markaan tago ayaan waxaan ku dhufanayaa header builder meesha ku qoran tahay. Kadib waa kana marka set title logo meesha ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa marka koobaad. Waayo logada ama text hadda ana logo nuguma jirto waa text baan ugu jira. Text-gaan rabaa inaan hagaajiyo. Text-ga marka fartaan ka yar waaweynina far yar waaweyn baan ka dhigayaa. Marka haddaan rabo inaan iska yareeyo xoogaana intaan tegayaa may logada width waaye. Hadda anaga waxa noo qoran waxa waaye sax waaye. Logo hadda haddii hadda meeshan logo nagu jir lahayd oo logo width waaye laakiin anaga hadda logo nuguma jirto oo text baan ugu qoran. Design baan tegayaa marka waa kana marka size baan tegayaa. Size marka ayaan waxaan ka dhigayaa 31. Okay. 31 aan ka dhigaba 31. Sidoo kale waxaan rabaa inaan dhinacan ka soo dhaqaajiyana waan rabaa sababtoo ah logadan hadda fiiris yani dhinacan darbiga leftiga aad uuma dhigana oo xoogaa ay ka soo dursan tahay. Marka margin hadda ayaan ku soo durjinaynaa oo margin left ayaan leeyahay. Haddii hadda fiiri laakiin aan dhaho aan rabo inaan left aan doorto haddaan dhaho 10 oo kale haddaan ku qoro dhammaan ayuu wada dooray. Sababtoo ah waxa dooran waxa waaye links waxa yani calaamadda linkiga waxa waaye waa dhammaantood waaye markay calaamadda blue saaran tahay oo wada saaran yani dhammaantood baa laga wadaa. Laakiin haddaan tick ka qaado aan rabo inaan kaliya aan doorto leftiga waa inaan tick ka qaadaa. Haddii laakiin aan tick ka qaadin waxay noqonaysaa inuu dhammaan wada dooro. Marka tick-tan ka qaadayaa markaan tick ka qaado oo color-ka isbedelo ayaan waxaan leeyahay 50. Marka content ayaa laga soo durkay dhinaca leftiga. Kuwa kale lama taaban top iyo right lama taaban ayaga.
sidoo kale colorkaan raba inaan ka bedelo waxaan leeyahay color waxaad ka dhigtaa color waxa waaye aan soo doortay so color waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa 2288 mar colorka hadda saasaan lagu bedelay colorkiina okay waxaan ku xijinaa waxa waaye marka inaan kuwaan hagaajino meeshaan aan tagayaa marka primary menu ay ku qorantaan waan dul tagayaa oo ku dhufanayaa kadib ayaan waxaan leeyahay marka design baan haddana kusoo dhufanayaa design markaan kusoo dhufto hoosaan u soconayaa waxaan rabaa inaan colorkooda bedelo colorka waxaan ka dhigayaa cagaar color cagaar ah 8822 okay colorka saas isku bedel sidoo kale markii la dul tago waxaan rabaa inuu colorka isbedelo hoverka marka waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa color guduud ah okay sidoo kale fartana waxaan rabaa inaan ka dhigo mid xoogaa wax yar weyn oo hadda aad buu yaryahay waxaan ka dhigayaa marka farta waan yareynayaa waxaan ka dhigayaa 17 okay 15 maaha 17 okay 17 ayuu kusoo baxaya waxaan kaloo aan ku xijinayna waxa waaye in meesha u dambeysa aan ku haysano buttonkan saan ugu soo darno marka fiiri markaan meeshaan markaan hadda dul tago meeshaan ama markaan yani bahalkan hoverka markaan saa u dul tago calaamad plus soo boodis micnaheedu waxa waaye wax ku dar waa calaamadda pluska markaan ayaan dul tagayaa kadib markaan calaamadda pluska dul tago aan ku dhufto wuxuu ii soo saarayaa account maarta inaan ku dartid button maarta inaan ku dartid html2 okay button baan leeyahay button markaan dhaho ayaan buttonka haddana dul tagayaa kadib waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa buttonka login okay magaca buttonka login ka dhig haddii buttonkan aan rabo link inuu geeyana hadda linkigaasaan ku qori karaa yani xaggaasaan linkiga gelin karaa kadib tusaale oo kale haddaan raba yani youtube-ka kaadsoo kale waxaan rabaa amaba meel kale inuu geeyo ama linkiga so haddii linkigaas aad rabto inuu meel kale ku geeyo kaliya waxaad dhigi kartaa linkiga xagga ha geeyo so intaad ku dari kartaa youtube hadduu rabo inuu kugu furno ku furi kartaa okay anaga ma rabno like taas design aan tagayaa kadib waxaan leeyahay color karta waxaa ka dhigtaa color cadaan ah color cadaan inta waa ka dooran karaa laakiin tan ku qorayaa color cadaan ah waxaan iska leeyahay ff color cadaan waaye background-kana waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa marka colorkii cagaarka waxaan leeyahay 228822 maha color aan xifdisanahay waxaan laakiin waa color aan meel ka soo qaatay okay sidoo kale marka inaan yareyno waaye yani hadda aad buu yar weyn yahay waa inaan yareyno waaye si aan u yareyno waxaan sameynayaa inaan baadinto hadda fiiri markii dhigto waxaan dhahaynaa haddii calaamadda hadda wada saaran tahay yani linkiga hadduu saaran yahay bahashaas ay buluug tahay waxay ka dhigantaa dhammaantood bay ka dhigantaa hadda waxaan rabaa kaliya inaan doorto top baan rabaa inaan doorto iyo bottom laakiin ma dooran karo haddaan dhaho top haddaan rabo tan haddaan ka dhigo dhammaan buu wada doorayaa sita marka taas aan u sameyn mar walba ka qaad tigtaas kadib waxaan leeyahay top kor waxaad ka dhigtaa 10 hoosna waxaad ka dhigtaa 10 okay marka hoos iyo 10 ayuu had dooriyay oo korna wuxuu ka geliyay 10 hoosna wuxuu ka geliyay 10 waxaan leeyahay sidoo kale right iyo left right waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa 20 left waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa 20 exactly saas ayuu noo tahay marka right waxaan ka geliyay yani 20 left 20 oo labadan isku mid aan ka dhigay labadan isku mid aan ka dhigay okay publish baan leeyahay kadib tigtaas aan ka qaadayaa marka website-kan aan ku laabanaa waa kaas saas hadda waxaan ugu diyaarsan menu ayaan qurxinay iyo buttonkii iyo title-kii kaasoo marka hadda waxa aan ku xijinayna waxa waaye waa inaan dhisno yani qaybtan hero section-ka ah si taas aan u sameyno hadda page-ka hadda fiiri home-ka nooma aha yani page-ka koobaad waxaana rabnaa home-ka inuu noo noqdo page-ka koobaad laakiin anaga nooma aho page koobaad page kala noo ah si taas aan u bedelana waxaan tegaynaa marka setting baan tegayaa kadib reading meesha ku qorantaa ku dhufo reading marka ku dhufatid meeshan ay ku qorantahay marka static page select ayaan tigta saarayaa kadibna home page baan
select gareynaya kadibna waxaan leeyahay home iyo door oo page koowaad waxay ka dhigan tahay waxaan dhahay hadda yacni page koowaad waxay iga dhigtaa home page kadib waxaan leeyahay save changes hadii hadda aan ku laabto aan refresh dhaho homeka ayaa waxa laga dhigay page koowaad waxaan ku xijinaa marka inaan hagaajino qaybtan hero sectionka marka qaybta hero sectionkana saan u hagaajino waxaan ku hagaajinaa waxa waaye waa Elementor